munaasabada furitaanka bangigan ammaana oo qaybka maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed ay ka wadaan caasimadda waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaano xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn faahfaahiyay adeega uu qabanayo Cabdirasaaq Xuseen Maalin gudoomiyaha bangiga ammaano ma ahan walaynaa ammaana markii ugu horeyso oo maqashaan ammaana waxay ka timid xawaalada ammaana oo muddo 20 sano ah u shaqeynaysay ummadda Soomaaliyeed una sameeysay howlo badan oo ku saabsan ganacsigooda iyo waxyaabaha lacagaha sida loo xawilo inta kadib waxa sharaf noo ah maanta inaan ku soo biirno bangiyada ka jira dalka oo aan ka mid noqono bangiyada dalka jira dhammaan mas'uuliyiinta ka hadashay munaasabada ayaa amaanay kaalinta maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed iyagoo ku tilmaamay fursado shaqo abuur oo bulshada Soomaaliyeed waxaan ognahay in juhdi badan laga soo galay maalgashi noocan oo kale in la sameeyo wax sahlan maaha dadkii fikirka lahaana runtii waxay ahaayeen dad waqti ku haboona keenay waayo adduunka maanta wuxuu ku dhamaanayaa online iyo banking wax la yiraahdo marka sida bangiyada casri u yihiin ayay ku xirnaan doontaa sida adduunka loo aamini karo maalgashina ku imaan karo mar kale sidoo kale shaqo abuurna waa tahay oo dhalinyaro badan runtii oo jaamiciyiin oo magaalada shaqo la'aan ah waxay u tahay fursad shaqo ku helaan hay'adaha institutionska maamula lacag ama xawaaladaha ama bangi ahaato ama wajiga ama insurance ahaato waxay hoos yimaadaan wasaaradda maaliyadda gaar ahaan bankiga dhexe ayaa mas'uul nooga wixii lacag markii laga meelay marka waxaan aad idinkula talinaa wax weyn kulli hadda ayaga siiyay shatiga waa ogahay haddii kalma aadan furteen in aad bankigaas si fiican wasiirka ganacsiga warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah u furay ayaa bogaadiyay horumarka ganacsiga ka socda dalka inaanu halkan maanta furno bangiga ammaana oo ah bangi cusub oo ku soo kordhay hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliyeed iyo bangiyada private-ka ee Soomaaliyeed sida la sheegay ammaana ma cusba company waxa weeye muddo sida la sheegay muddo soo shaqeynayay oo shaqo fiican oo nadiif ah soo qabtay haddana hadduu shaqooyinkiisii ku daray bangi waa horumarka uu sameynayo ganacsiga Soomaaliyeed ayay ka mid tahay waa wasaarad ahaan iyo dawlad ahaan intaba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.